السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برشادة لغة عصب وأقونت ugu sahlan ee sida ugu fudud loo baran karo waliba marka loo eego ka Soomaali ahaan furfurnaanta maskaxdeena awgeed waxayna kaaga baahan tahay wax yar oo dadaal ah maadaama isku socodkii bulshada iyo xiriirka caalamka uu xoogeystay. sidoo kale waxaa adduunka maanta lagu tilmaamaa hal tuulo oo kale waxaana qof kasta laga maarmaan ah inuu barto luqad aan lahayn afkiisa hooyo waxaana ugu mudan qofku inuu barto Carabi iyo Ingiriis oo cilmiga uu ku qoran yahay. muuqaalkeena waxaan ku eegi doonaa 4 xeer iyo 7 ficil qofka caadiga ahi luqad cusub si dhaqso leh ugu baran karo waliba jilicsan oo wax ku ool ah. marka hore waxaan rabaa inaan ka hadlo 2 shay oo khiyaali ah dadka intooda badan ay aaminsan yihiin oo ah qofku inuu yahay qof talent ama qofku inuu mihnad u leeyahay. sidaa darteed luqadda cusub uma baahna qofku inuu yahay qof talent tan labaad qofku inuu tago wadanka luqadda looga hadlayo. tusaale ahaan Hong Kong waxaa jira dad reer galbeed ah oo muddo sanadaha joogay oo hal ari oo Chinese ka garanay luqadda Chinese. sidoo kale waxaa jira dad badan oo Soomaali ah oo qurbaha ku noolaa muddo badan oo aanan ku hadli karin luqadaha wadamadaas looga hadlo. sidaas darteed arrinta ah inaad tagto wadanka luqadda looga hadlo ma aha arrin micno badan sameynaysa waayo markuu qofku luqad baranayo oo aanan ku hadli karin waa sida ilmaha oo kale. ilmaha yar haddii lagu dhex tuuro meel ay dad waaweyn ku sheekeysanayaan oo midba wax gaar ah uu ku hadlayo ku dhex wareeraya waxna kuma baran karo. haddaba maxay yihiin 4 xeer ee loo baahan yahay inaad awood gaar ah siiso xeerarkaas oo kuu sahlaya inaad si dhaqso leh u barato luqad cusub. inaad awood saarto xog kasta oo si gaar ah kugu saabsan. tusaale ahaan qalabka waxaan si fiican u baranaa markaan isticmaalo sidoo kale oo la xiriirsado nolosheena. luqadda u isticmaal sida qalabka oo kale qalabkaas oo loo baahan yahay inaad isticmaasho oo adeegsato isla maalinta koowaad. isku day inaad fahanto fariinta guud ee xambaarsan tahay luqadda aad baranayso. cilmibaarisyo badan ayaa waxaa lagu sheegay qofka haddii uu fahmo ujeedada iyo hadafka laga hadlayo inay u fududahay inuu barto luqadda cusub oo baranayo. luqadda markaad baranayso uma baahna aqoon badan laakiin waa tababarka luqaddu waxa uu u baahan yahay inaad dhageysi badan sameyso sidoo kalena ku hadasho. inaad xiiseynayso luqadda aad baranayso waa qodob aad u muhiim ah inaad xiiseynayso luqadda aad baranayso mar walbana jeceshahay inaad dhageysato maqasho. haddaba maxay yihiin 7 ficil ee lagaga baahan yahay inaad raacdo si aad luqad cusub si dhaqso leh ugu barato. badi dhageysiga luqadda aad baranayso. isku day inaad fahanto micnaha iyo ujeedada waayo dadka intooda badan waxay isticmaalaan luqadda jirka oo dareemadooda ay ku muujiyaan ayaad ka sii fahmaysaa. bilow inaad wax isku qasto. tusaale ahaan haddaad taqaano magacyo tilmaamo ficilo isku day inaad isku qasto oo micno ka sameyso. waxaad diiradda saartaa inta badan ereyada ugu muhiimsan ee luqadda aad baranayso waayo luqad walba waxay leedahay ereyo aad u soo laalaabta sida laakiin iyo inkastoo iyo wax la mid ah. inaad hesho qof luqadda yaqaano oo ku dulqaato oo kula hadashid oo ku kalsoon tahay aanan ka cabsan. isku day inaad koobiyeyso wejiga qofka kula hadlaya ama qofka hadlaya. inaad maskaxdaada ku xirto. haddaba waa inaad ogaataa wax walba oo caadiyan aad taqaano inuu yahay shay meel kaaga sawiran maskaxdaada. tusaale ahaan dab markaad maqasho waxaa maskaxdaada ku soo dhacaya wax holcaya oo kulul. sidaas oo kale ereyga aad baranayso waa inaad si maskaxiyeena uga dhaadhicisaa maskaxdaada. 4 xeer iyo 7 ficil haddaad sameyso si waxtar leh oo dhaqso leh ayaad ku baranaysaa
luqad walba muddo kooban sida 6 bilood oo kale.